dhibkaanay leedahay markaa barnaamij waa la diyaarinaysid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta meel walba daafaha dunida ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falcelinta faalooyinka Facebook. Intiina af Soomaaliga ugu yaryahay waxaanu la jeedo falcelinta faalooyinka Facebook aflow ka dhageysta. Haye aflow. فوق يا لذيذ أدي أدبا وما سنتها صاحب برامجك فالعلنتها فالوينك فيسبوك وح كلا ما عندي وحلا دبقة لي عدي فالوينك بلا دبقة لي وحلا قرتين دتكينا سيدي شيطان كور رقمي وحيد الدونا نسكسو حريقي خاص بالولوجي ده فالعلنتها فالوينك فيسبوك أنا قونا مربع يدين دادي هندونا لايك شير سبسكرايب على قولوا الله عاوي كان حاو ما هستي الله عاوي سبسكرايب فوق كلمه ما سندين Dabcan waxaan rajaynayaa iminka inaad fahanteen waxa aanu la jeedo. Falcelinta faalooyinka Facebook waa dabagalka faalooyinka Soomaalidu waxa ay qoraan. Baraha bulshada ay ku qoraan. Waxaa jira haddaba faalooyin ama kommentiyooyin ka yaabin iyo ka fijicinaya. Kuwaas ayaan dabagal ku sameeyaa. Kuwaas ayaan screenshot inta nooga soo qaado noo soo xilo iyo waxay nooga sameeyaa barnaamij xiisa badan oo la yiraahdo falcelinta faalooyinka Facebook. Haddaba toddobaadkan waxaan jeclahay guud ahaan barnaamijka inaan kusoo qaato falcelinta faalooyinka Facebook sheeko lagu qoray bogga BBC-da oo ku saabsan Bulde Masayr. Gabar Masayrtay ku saabsan. Sheekadan wuxuu dhacaysaa sidatan. gabar ayaa waxaa qabay nin gabarna ma ahayn imika duqbay noqotee 55 jira Dubai isku qabeen kadib Ingiriiska ayuu soo guureen ninkii ayaa ku laabtay Dubai waa iska taqaanaa damaca faarax ma dhamaado waa iska badan yahay 100 sano gaaray xabad wuxuu arkay kush oo kala xiran oo ma sha Allah Hargeyso inta ay fahmaysa inta fahmeen ka jifta iyagu u taala ay itaalo حبدو كو قبتي دا نكاح جدا عروس فرحان وابا اسو حريه سوردي قفتي فيسبوك دا كو سوسي حليمدان سوردي aragtay dhacdo soo qabatay hal sawir ka dooratay Facebook geeda soo saartay faraxay ku taageersay maxay dhahday doqono ma faraskan ay ga raacday dhahday faraskan fooshuxun miyaad iga raacday حبتي وحاوايه شرطة ده بوليس كانوا لجدا فريق وان ترتوتا وقت شرطة دي دبي حرشي وقبت انه بلاك ليست قالوا قدره ابدا ما بحذا دبي اقواتو عند ذاك معناها حرفانك يا معناها وجيتو واد انت يا هوس لنا لوغا واحد دبي اقواتو ايربوركا دك بلوسي ولا قبتي حالي لبا سنه كهر يا واحد في اليمود عمل oo ninkaaga hore dhintay aad macnaha xaaskiisa waxa ku sheegtay faras baad ku aflagaadaysay marka 2 sano ya 2 sano ma li jira Arabiga 2 sano ila jeel ayaa la dhahayaad aadaysa xagaad liintu ku soo cabaysaa haddaba sheekadaas markii BBC-da qortay ayaa waxa laga bixiyay kommentiyo waalan ayaa laga bixiyay oo ku saabsan faraska iyagoo Soomaali eegayaan ilaa faraska anagu gabdhaha waanu ku amaanayo faraska waa lagu gabyaayo waa lagu geeraarayo heesuhu ku jiraayo ma sha Allah Soomaaliga daciyalka xafadada xoogsan taqana xabadaas oo faras waa yaaqano geeyo waayano waa kala xirantaayno ya xaalad si kale soo badashay falcelinta marka Soomaalidu ay ka bixisay sheekadaas jeclahay inaan noo soo qabto daawasho habboon comment ugu horeeyay jeclahay inaan maanta noo soo qabto waxaa bixisay nasteexo daahir nuur war gabadhaas single iyo xaas waxay tahay anigu ma aqaan qofka ku darsanaya asaga u taala kii follow gareynaya asaga u taala laakiin commentigeedu ma soo qabanaya commentigeedu waa kan inoo muuqda maxay leedahay nasteexo waxay leedahay faras waaba amaan ninkii naagtiisa doofaar yahay doofaarta dhashay dhahdo dameerta ka fooshuxun waxay leedahay war hadiiba faras qoftaasi ku amaantay waaba khayr taagan tahay laakiin faaraxyo waxaa jiray taagan tahay macnaha yiraahdo dumarkoodu ku yiraahdo doofaar dhashay oo dameerta ka foolxun ani waxyaabaha fahmila waxa kamid ninkan dameera waxa lagu haysto waa lagu xamaashaa biyo soo dhaamiya cid biilkoodu ka qayb qaata waa caawiya
نبر علوي إلي والو جقي دمر واحد اسكو عاي وافهم لاي حقوق دمر قال لي يا اخي انه هدي لي لين نحتى هلا يا ريا عيد حقوق القداف كومنتي حقا يا واي markana waa gabar kale meeshan gabdhaha u badan nasriin daahir gabar la yiraahdo waxay leedahay gabdhaha Soomaalida haddii loo xiri lahaa hadal ay masayr u yiraahdeen ama u tiri walle xabsiga 20 mar baan gali lahaa kaligay gabdhaha taaganta diiba masayr hadal loo yiri la isku xiri lahaa number 1 anaaba xabsiga dalaq dhihi lahaa shukub aye faarax ay maqluusaya waa ku darsanay qoftaan masayray way warkeed waa caadiya waxay rabtaa afkeedana ka soo baxay waa ku jirtaa laakiin gabdhaha masayrka badan xoogaa rag oo rooyin arbaxno hilibka caanaha ya timirtii oo codka isku soo bisan kuwa masayrka badan ka fiican kuwa masayrka yar markii xagga ninka dhaqaaleyntiisa la yiraahdo kuur hadaa rabtid hadii firaaqata kuur yaa akhi laga hormar kuur ku yaa kale gabar kale ma rag kuma taban bixinayaan meeshan miya gabadhan kale na soo qabto gabadhan kale magaceeda waxa la yiraahdaa Caaliya Saciid barbarayada u jiiftay bahal qosale dhaca ka siisana waxa tiri saaxiibkayga hore baa ammaan iiga dhigi jiray geeyay faras ya rabbi ya ilaahay allah waa iskala meesha waa ishaya hadaade Caaliya Saciid hadaade saaxiibkayga hore si fiican u akhriya saaxiibkayga hore baa ammaan iiga dhigi jiray geeyay iyo faras baa tahay marka waa inaan ninkan maxkamad la koraa oo la karaasada gabadha taagan tahay xabadkii hore hadda duqa macnaa waa xamaashano ya wadada ku qulqul alaabtii farxiifiska ugu toortaa maleena ay leedahay wuxuu ugu amaani jiray faras iyo geeyo marka duqa waa bay cayn jiray taagan tahay maxkamadina la soo fuulo waa faaraxow baxara ku jirta nasiibkiisu qaba commentiga ku xigta أحمد جوبا ورا فارح وانا اسحوريه ماشان كومنت اسونا بخي أحمد جوبا محو ليه بل كومنتيgiisa ina wad arag أحمد جوبا wuxuu leeyahay kuwa iyagu dameer bay nagu tilmaamaan lama xiro meel aan cadaalad oolin faras xagayga waa ka xiin faniin wuxuu yiri macnaha gabdhaha iyagu xaliimooyinka iyagu anagu waxay nagu tilmaamaanba dameer bay nagu tilmaamaan haddii faras lagu yiraahdo xagayga waa ka xiin faniin faraskiisa Maxamed Cabdullaah Xasan ee baa u naxariistay ayuu wuxuu leeyahay waaba ka xiin faniin hadiiba faras la yiraahdo ammaan baa u qaadan lahaa afkayga ereyka masoo bixiyeen ama juba hadaada ma santaa saaxib aye gabdhaha sinkalka lagu yaa ninkaas odayga waa gartay haye deeqaluul qalbi jacayl axmed abo deeqaluul qalbi jacayl axmed magaca meeshaan ku dhamaaday horta bahal qosala ee dhinac la dhacday waxay taagan tahay waxbaa ka raacay maxaa u geeyay dad caydood meeshaahida iska cabto dib mala deeqaluul ka cabsan xabsiga liintu ka cabaysa imika هاي فيصل أحمد مرق أصلا محولية فيصل وحولية هاي سومالي دا كسوغ الشاه سومالي دا لايف كسوغ الشاه أو دادك انتا عيسى شرع ما قبتميا ساو يابنتا صاحب ويابنا ساو يابنا هاي قعدنا ويابنتا هاي أنا ويابنا كل غير ويابنا شرع قاس وسوقنا وما حسنت فيصل توجي سافيري سوق سنجل مويك هاي والله أنا كاس وحكا عدا قبل ألو كالمية like share follow waxa rabtiin ninkaas odayga miskiinka walaal loogu qabto alla kaalmeeyo haye commentiga ku xiga waxa waaye xabad ciyaalka xaafada ya ciyaal jim iska ciyaal bulon iska meelihiisa iska marmara Manchester taageero waa yaab markan faras aaba qof loo xiray markii la dhahay wuxuu taagan yahay faras amaan ma ho macnaha saacad ka hor xabad وزبك وش كمينا إنه فرسات الوقفية يا جينيا تهانو يا كالانو دقيقة ديدا تهانو وكواي فرس ما هانو فرس أمان ما هانو حسن عبدي أبصر ولا حسن رضيق الله كلمي الله لقرب قبته markay halkaas marayso waxaan jeclahay toddobaadkan inaan intaas inoogu soo gabagabeeyo barnaamijkeena faalooyinka falcelinta Facebook waxaana barnaamijka idin daadihinaya idin farsameynaya anigoo Faad Qabyaaladida waxaan idin codsanayaa inaad channelka subscribe like share aad ugu caawisaan meel walba dunida ka joogtaan waxaad ilaahay guulaysatan iyo toddobaadka soo socda intaan ku kulmi doono barnaamijka falcelinta faalooyinka Facebook maxaan idin ilaahay
mar kale waxaan idin leeyahay dugsi male qabyaalada waxay dumisa mooyaane ballanteenu waa inaan wax wanaagsan oo madadaala aynu la wadaagno ku mashquul ka mashquul ayaa dhaanto inaa qof ku mashquushid inaa ka mashquushid ayaa dhaanto tana xaagu mashquushid ballanteenu waa hee xilliga jiifka la gaaray maca salaamo mahadsanid